مالية إيو مدحوينها مستقبلك إن شاء الله. السلام عليكم. Gaameetle waa qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed kuwaas oo xoogoodu degaa dhulxeebeedka gobolka Shabeellaha Hoose sida Marko iyo Gandarshe. sidoo kale waxay degaan dhul beereedka isla gobolka Shabeellaha Hoose sida Nambar Konton, Qoryoole, Idimow iyo Jeero. Gaameetle waxay sidoo kale degaan gobolka Banaadir oo ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Gaameetle waxay ka mid yihiin beelaha Banaadiriga. asal ahaan Gaameetle waxay ka soo jeedaan dhulka Carabta gaar ahaan Yemen waqooyigeeda halkaas oo sidoo kale loo yaqaanay dhulkii Saba. Saba oo ahayd meesha haatan loo yaqaano gobolka Maarib ilaa Sacda ilaa Najraan oo xadka Yemen iyo Sacuudiga ayaa ah meel ay ka soo jeedaan qabiilo badan oo Carbeed. Yemen oo ah asalka Carabta ayaa haddana gobolkii Saba ahayd meel ay ka soo jeedaan qabiilo badan oo Carab oo waaweyn kuwaasi oo dega inta badan dalalka Khaliijka, Syria ilaa Falastiin iyo qaybo ka mid ah dalalka ku yaal qaaradda Afrika. qabiilada ugu tunka waaweyn ee ka soo jeeda dhulkii la oran jiray Saba waxaa ka mid ah qabiilka Banu Hamdaan oo ah carruurtii uu dhalay Zayd bin Caamir bin Hamdaan. sidoo kale qabiilada waaweyn ee ka soo jeeda dhulkii la oran jiray Saba waxaa ka mid ah qabiilka la yidhaahdo Gaamid. qabiilkan Gaamid oo haatan dega ama ku nool dalka Sacuudiga gaar ahaan gobolka Xijaaz. asal ahaan waxay ka soo jeedaan Gaamid dalka Yemen gaar ahaan waqooyigeeda ama dhulkii Saba. sidoo kale qabiilada waaweyn ee ka soo jeeda dhulkii la oran jiray Saba ee Yemen waxaa ka mid ah qabiilka la yidhaahdo Zahraan. qabiilkan Zahraan ayaa haatan dega ama ku nool dalka Sacuudiga gaar ahaan gobolka Xijaaz. asal ahaan qabiilka Zahraan ayaa ka soo jeeda Yemen waqooyigeeda. qabiilada kale waaweyn ee Carbeed ee ka soo jeeda dhulkii Saba ama waqooyiga Yemen waxaa ka mid ah qabiilka la yidhaahdo Azad. qabiilkan Azad oo ah qabiil ballaaran oo weyn oo ka kala baxa qabiilo tiro badan kuwaasi oo dega dalalka Khaliijka sida Cumaan, Kuwait, Bahrayn ilaa Qatar ayaa waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Yemen gaar ahaan gobolka Maarib. waxayna u soo wareegeen Sacuudiga kadib markii uu burburay bixireenkii weynaa ee gobolka Maarib. waxaa sidoo kale xusid mudan in qabiilkan Azad ay ka soo faracmeen labadii qabiil ee ka mid ah reer Aws iyo reer Khasraj kuwaasi oo ka mid ahaayeen qabiiladii degnaa Madiinatul Munawwara waxayna ka mid ahaayeen qabiiladii saxaabada ee Ansaarta. haddaad maqashay Gaameetle waa saldanad oo wax soo jireen ah ay kala yimaadeen dhulkii Carabta iyo isir ahaan halkii ay ka soo faracmeen. Gaameetle waxay ka soo faracmeen reer Banu Hamdaan gaar ahaan qabiilka Banu Kathiir waana farcii Kathiir binu Maalik binu Jaashim binu Xaashid binu Jaashim binu Jibraan binu Nawf binu Hamdaan binu Maalik binu Zayd binu Awsal binu Rabiica binu Qiyaar binu Maalik binu Zayd binu Kahlaan binu Saba min qabiilati Hamdaan. maanta qabiilka Kathiir Banu Kathiir waxaa xudun u ah gobolka Xadarmuut oo ay maamulaan. Xadarmuut waa gobol ballaaran oo bariga Yemen ah taasoo dhirisa xadka Sacuudiga ee koonfureed ilaa galbeedka Cumaan. caasimadda Xadarmuut waa Sayuun.
waxayna leedahay degad caan ah oo la yidhaahdo mukalla. inkastoo qabiilka reer banu hamdaan ay degaan waqooyiga yemen gaar ahaan gobolka sacda oo dhaca waqooyi galbeed yemen, sidoo kale sanca ilaa najraan oo ah xadka sacuudiga iyo yemen, balse haatan xisaabtan dalka sacuudiga, haddana qabiilka reer banu kathiir oo ka mid ah qabiilada banu hamdaan oo ay ka soo tageen gobolladii waqooyi, waxayna yimaadeen gobolka xadarmuut oo dhaca bariga yemen, halkaas oo ay ka aasaaseen saldanad iyaga u gaara dhammaadkii qarnigii 13aad, inkastoo ay iskacaabin kala kulmeen qabiiladii halkaa degnaa sida qabiilada kayti, camuudi iyo kasaadhi, balse ugu dambayn qabiiladan waa laga adkaaday oo waxa ay u hoggaansameen saldanadii banu kathiir ee xilligaas. inkastoo markii ugu horraysay islaamku soo gaaray geeska afrika xilligii suubanaha sala allahu calayhi wasallam, markii qaar ka mid a asxaabtii ay u soo hijroodeen dhulkii ardulxabasha, haddana sida kutubo badan ee qoreen islaamku waxa uu si xoog leh u soo gaaray qaaradda afrika, gaar ahaan waqooyiga afrika bilowgii khaliifaddii umaawiyiinta. haddana islaamku waxa uu si tartiiba u soo gaarayey geeska afrika xilligii cabdulmaalik binu marwaan oo ahaa khaliifkii shanaad ee khaliifaddii umaawiyiinta. waana xilligii qabiilkan gaameedle ee ka soo jeeda reer banu kathiir banu hamdaan ay soo gaareen soomaaliya iyagoo fidinaya diinta islaamka. gaameedle ayaa xilligaas ka soo degay xeebta xamar. muddo yar kadib waxay u wareegeen deegaan xeebeedka koonfureed, gaar ahaan meel hadda u dhexaysa ceel jaalle iyo ceel axmed. muddo kooban oo halka ay joogeen kadib waxa ay qabiilkan carbeed ka guureen deegaankaas, waxayna taariikhaanadu ku sheegeen in deegaankaasi ay ka dareemeen xanuunno. kadib waxay deegaan cusub ka aasaaseen magaalo markii dambe geli doonto taariikhda deegaannada Soomaaliyeed. gaameelle waxay aasaaseen marko qarnigii 7aad, wakhti hadda laga joogo 1272 sannadood, iyadoo markaa taariikhda hijriyada ahayd 175 hijriya. gaameelle ayaa marko ka dhisay masaajidkii ugu horreeyey. masjidkaas oo haatan loo yaqaano masjidulqadiim uu ku yaallo marko degmada wadajir, gaar ahaan xaafadda saraha. waxaa jiro masaajid kale oo qadiimi ah oo isla xilligaas ay ka dhiseen marko isla degmada wadajir, gaar ahaan xaafadda awbaalle. sida inta badan laga arki karo deegaanada ay degan yihiin Soomaalida, masaajidadu ku yaal waxay leeyihiin ceelal loogu talagalay in dadka masaajiddaas u imaanaya inay salaada ku ogaan ee ay ka helaan weyso, balse mala socotaa in dhaqankaas uu yahay dhaqan Soomaali inteeda kale ay kaga daydeen qabiilkan Soomaaliyeed, balse asal ahaan carabta ah ee gaameedle. sida laga arki karo masaajidadii ugu qadiimisanaa ay ka dhiseen Soomaaliya, gaar ahaan deegaanadii ay ku noolaayeen. qabiiladii ugu horeeyey ee qabiilka gaameelle la soo degay magaalada marko waxay ahaayeen ilaa iyo 4 qabiil, waxayna kala ahaayeen 1 qabiil la yidhaahdo dalcubayd oo sidoo kale loo yaqaan qabiil reer anqadiib, 2 qabiil la yidhaahdo duruqbo, 3 qabiil la yidhaahdo dirki, 4 qabiil la yidhaahdo dayle. kadib waxaa xigeen qabiilkii asharaaf iyo qabiilka la yidhaahdo baawasiir, kadib qabiiladii kale ee Soomaaliya. qarnigii 7aad ilaa 8aad markii laga soo tago fidinta diinta, gaameelle waxay sidoo kale xudun u ahaayeen ganacsigii ka jiray qaybo badan Soomaaliya, gaar ahaan banaadir iyo marko, iyagoo yemen iyo dhulka carabta ka keeni jiray go'aha la xirto, timir iyo bun ama qaxwe.
gaameedle ganacsigooda waxa uu gaaray ilaa Zanzibar ilaa Mombasa Kenya waxayna sidoo kale ka mid ahaayeen carabtii jasiiraddii Zanzibar geeyey diinta islaamka qarnigii 7 ilaa 8 qarnigii 13aad waxay ahayd qarni ku weyn dhammaan reer Banu Hamdaan oo dhan waana qarnigii ay dhiseen dhowr saldanadood oo ay ka kala dhiseen qaybo kala duwan caalamka tusaale dad asal ahaan reer Bani Hamdaan oo ka tagay Yemen qarnigii 8aad oo aaday dalka India gaar ahaan gobol lagu magacaabo Punjab ayaa qarnigii 13aad waxay ka asaaseen saldanad islaami ah gaar ahaan koonfurta gobolka Punjab imika koonfurta Punjab waxa ay xisaabsan tahay ama ay ka tirsan tahay dalka Pakistan kadib kala go'ii labadii dal ee India iyo Pakistan sanadii 1947 isla qarnigaas 13aad waxaa qabiilka Banu Kathir Banu Hamdaan ay saldanad islaami ah ka dhiseen bariga Yemen gaar ahaan gobolka Hadramaut isla qarnigaas 13aad waxaa qabiilka Gaameedle oo asal ahaan ah reer Banu Kathir Banu Hamdaan waxa iyaga iyo qabiilka lagu magacaabo Ajuuraan wada dhiseen saldanad islaami ah saldanadaas oo lagu magacaabi jiray saldanadii islaamiga geeska Afrika balse ku caan ahayd magaca boqortooyadii Ajuuraan saldanadan ee qabiilka Gaameedle wax ka aasaaseen ee lagu magacaabi jiray boqortooyadii Ajuuraan ayaa ahayd saldanadii ugu cimriga dheereyd ee soo marta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika kadib faraacinadii taas oo ka dhigtay geeska Afrika mid dhadhan iyo micno leh magaalada Marko oo ahayd xaruntii ugu weynayd ee saldanadaas ayaa Gaameedle ahaayeen dadkii maamuli jiray magaaladaas ayna ka talin jireen Marko laga soo bilaabo qarnigii 13aad ilaa 17aad dhamaadkeeda Marko waxa ahayd meel qurux badan oo dhisan oo camiran waxaana ka jiray dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh doomo ay saaran yihiin waxyaabaha dhirta ee cuntada udgoon iyo dhadhan looga dhigo iyagoo xariirta ka samaysan iyo sidoo kale caleenta shaaha oo laga soo raray dalka India ayaa si toos u imaan jireen xeebaha Marko sidoo kale maraakiib ka timid dalka Shiinaha oo ay ku raran yihiin alaab maacuun oo ka samaysan qalin ayaa qarnigii 13aad 14aad iyo 15aad lagu arki jiray suuqyada Marko iyo sidoo kale Baraawe iyo Xamar taas oo ah mid ay la yaabeen dulmareenadii caalamiga ah sida Ibn Battuta dulmareenkii reer Morocco oo yimid Soomaaliya qarnigii 13aad iyo Vasco da Gama dulmareenkii reer Portuguese oo isna soo gaaray Soomaaliya qarnigii 15aad Gaameedle ayaa ka saaciday saldanadii islaamiga geeska Afrika balse ku caan ahayd magaca boqortooyadii Ajuuraan ilaa 3 qayb waxayna kala ahayd qaybta koowaad oo ahayd maamulka taas oo ku qotintay shariicada islaamka mid labaad waxa ahayd militariga mid saddexaad waxa ahayd nidaamka canshuuraha gaar ahaan mid qoysay dalagga iyo beeraha magaalada Marko ayaa ahayd xaruntii ugu weynayd ee Gaameedle iyadoo halkaas uu yaalay kursigii Gaameedle ee talada iyo xukunka ku goon jireen Gandarshe ayaa ahayd xaruntii lagu qaadi jiray ama ay ku qaadi jireen canshuuraha gaar ahaan mid qoysay dalagga iyo beeraha qarnigii 14aad abaar xooggan oo ku dhufatay Soomaaliya gaar ahaan dhanka waqooyi abaartan oo xooggeedu ku dhufatay Berbera iyo nawaaxigeeda
taas oo xaalufisay dhammaan xoolihii iyo wixii haysteen dadkii halkaa ku dhaqnaa, ayaa ugu dambayn kaliftay in dadkii ay isaga soo tagaan deegaanadaas oo abaartii dheeraatay ku dhufatay, waxayna soo aadeen dhanka koonfureed. waxaa xusid mudan in qabiilka Gaameedle ay ahaayeen dadkii u istaagay soo dhoweynta dadkan, kuna soo dhoweeyey Marko iyo deegaanadii ku hareeraysnaa, halkaasi oo lahaa biyo iyo baadba. waana halkii ay ka bilaabatay taariikhdii Dirbiyamaal iyo gobolka Shabeellaha Hoose. qarnigii 15aad Soomaaliya ayaa ku jirtay waqti aad iyo aad u wanaagsan abid dhaqaale ahaan, iyadoo xiriir ganacsi la lahaayeen boqortooyooyinkii ka jireen bariga Aasiya, koonfurta Aasiya, Yurub, waqooyiga Afrika iyo bariga Afrika, oo maraakiibtii ka soo kala shiraacadaan dalalkan ay ku soo xiran jireen xeebaha Xamar, Marko iyo Baraawe. tan ayaa soo jiidatay indhihii gumaystihii Boortaqiiska oo markaa fadhiyey xeebihii Sabaaxiliga, balse haatan loo yaqaano Kenya, sida Mombasa, Lamu iyo Malindi, iyagoo go'aansaday in ay qabsadaan Soomaaliya, gaar ahaan dhulka xeebaha, halkaas oo dhaqaale ahaan aad u sarreysay. qarnigii 15aad gaar ahaan sanadii 1542 ayuu gumaystihii Boortaqiiska soo wajahay Soomaaliya, waxaana hogaaminayay sarkaal la dhihi jiray Taristo da Cunha, isagoo rabay inuu qabsado magaalooyinkii ku tirsan xeebaha koonfureed ee Soomaaliya, maadaama Boortaqiisku hore u soo qabsaday dalalkii kale ee bariga Afrika sida Kenya iyo Tanzania. markan Soomaaliya ayuu soo wajahay qaas ahaan dhul xeebeedka, magaalooyinkii ku tirsanaa sida Muqdisho iyo Baraawe, halkaas oo doomihiisa dagaalka ka soo muuqdeen xeebta. Marko oo ahayd xaruntii Gaameedle, doomihii dagaalka ee Boortaqiiska kuma soo dhiiran in ay ka soo agdhabaadaan. Baraawe oo Boortaqiiska soo galay ayaa markii dambe ku baxeen Gaameedle oo garabsanaya dadkii deegaanka Baraawe oo hore Boortaqiiska ka soo eriyey guryahooda, iyagoo ka bilqaystay waxay hanti haysteen, isla markaana ciil qaba oo deegaanka Baraawe banaankooda ku sugan, iyo Gaameedlihii marka ka soo gurmaday ayaa inta isbahaystay kadib waxa ay madax isdareen gumaystihii Boortaqiiska oo markaasi ku sugnaa qaybo ka mida Baraawe. halkaas ayaa waxaa ka dhacay dagaal qaraar, waxaana ugu dambayn jab xoog la soo gaaray gumaystihii Boortaqiiska, isagoo halkaas ku waayay askar iyo maraakiib. waxaa la sheegaa in Taristo da Cunha oo ahaa sarkaalkii hogaaminayay askartii ciidamadii Boortaqiiska soo gaaray dhaawac, isagoo markii dambe u baxsaday jasiiradda Socotra oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen. isla xilligaas Banaadir waxaa ka socday dagaal kale u dhaxeeya boqortooyadii Ajuuraan iyo Boortaqiiska. Boortaqiiska ayaa hogaaminayay sarkaal lagu magacaabi jiray Gio da Zubevelda, isaga iyo ciidankiisaba waxaa sidoo kale soo gaaray jab weyn, waxaana la iloobi karin taageeradii boqortooyadii Cuthmaaniyiinta ay u muujiyeen Soomaalida. waxaa la sheegaa in Taristo da Cunha oo ahaa sarkaalkii hogaaminaya duulaankii Boortaqiiska ee ay ku qaadeen deegaanka Baraawe, in isagoo ku sugan jasiiradda Socotra uu markale isku dayey in uu ciidamo isku soo aruuriyey, isku dayey inuu markan soo weeraro Banaadir, balse waxaa soo gaartay akhbaarta ah in ay kumanaan kun ciidan oo Soomaaliyeed ay diyaar ku yihiin xeebaha Xamar, ayaa ku kaliftay Boortaqiiska in uu qorshaha bedelaan, inkastoo
Taristo da Cunha uu ka cagajiidayay in duulaankiisa baajiyo. Haddana saraakiishii kale ayaa ku dirqiyey in xeebaha Soomaaliya aan dib dambe loo weerarin si Boortaqiiska uu kaga badbaado khasaare kale oo ka soo gaarto gacmaha Soomaalida. qarnigii 17aad dhammaadkeedii waxa ay ku beegnayd waqti Soomaaliya ee wajahday waqti ka duwan waqtiyadii hore, maadaama ay ku beegnayd waqtigii ay burburtay saldanadii Islaamiga ah ee faca weynayd, taas oo muddo badan ka talinaysay dhulka Soomaalida. Saldanadan oo ku ahayd magaca boqortooyada Ajuuraan ayaa ka talinaysa Soomaaliya ilaa 400 oo sanado. Saldanadan oo qayb ka ahaayeen aasaaskeeda qabiilka Gaameelle, taasi oo xukumaysay ilaa 4 qarni. dalka Soomaaliya qaybo badan oo kamid ah ayaa burburtay. waxyaabihii sababtu noqday in saldanadan ay burburto waxaa kamid ahaa in qaar kamid ah beelihii kale ee Soomaaliyeed ee saldanadan qaybta ka ahaa ay ku dhaqaaqeen waxyaabo lid ku ah shariicada Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, taas oo markii dambe kaliftay in saldanadan lagu salido cadow dibadda sida boqortooyadii Oromia oo 2 jeer soo weerartay iyo Boortaqiiska oo isna 2 jeer soo weeraray. inkastoo Boortaqiisku ku fashilmay isku daygiisii duulaan ee uu doonayay inuu ku qabsado dhulkii Soomaalida, ayaa haddana duulaankiisii labaad waxa uu ahaa mid geystay burbur weyn u geystay Xamar. Boortaqiiska oo ciidan dheeri ah ka dalbaday jasiiradda Malindi oo ahayd meel isaga markaa xukumayay kana mid ah jasiiradaha dalka Kenya, ayaa u adeegsaday ciidankan inuu ku burburiyo Muqdisho. kadib Boortaqiiska ayaa u gudbay dhankaas iyo deegaanka Baraawe, halkaas oo sidoo kale ahayd meel Boortaqiiska ka soo gaartay jab weyn kadib markii Gaameelihii ka soo gurmaday Marko iyo dadkii deegaanka Baraawe inta isgarabsadeen Boortaqiiskii madaxa isdareen, ayaa halkaasi Boortaqiis ka soo gaaray jab weyn isagoo ciidan iyo maraakiibba ku waayay, askar badanna nolosha loogu qabtay. inkastoo markii dambe askartaas Boortaqiis ee nolosha lagu qabtay markii dambe loo gacan geliyay boqortooyadii Cuthmaaniyiinta oo markaas fadhigoodu ahaa magaalo xeebeedka Berbera ee waqooyiga Soomaaliya. Boortaqiiska oo ciilkaas qaba ayaa kula duldhacay dadkii Baraawe iyo deegaankaba isagoo guway guryo badan. ugu dambayn ciidankii Boortaqiis u hogaaminayay sarkaalkii Subovelda ayaa ka tagay deegaanka Baraawe iyo guud ahaan Soomaaliya iyagoo ku fashilmay hadafkoodii weynaa oo ahaa inay qabsadaan deegaanadii Soomaalida siday u qabsadeen dhulalkii kale ee bariga Afrika sida Kenya, Tanzania ilaa Mozambique. xilligaas waxaa jiray loolan adag oo dhuleed oo ka dhaxeeyay boqortooyadii Cuthmaaniyiinta iyo Boortaqiiska. magaalada Marko oo ahayd magaalo aad iyo aad u dhisan isla markaana dhaqaale ahaan cir ka maraysay ayaa ahayd magaalada keliya ee ka badbaaday gacantii Boortaqiiska. magaaladaas Marko oo ay gacanta ku hayeen isla markaana xukumayeen qabiilka Gaameelle ayaa difaac adag ka xiray, taas oo u diiday Boortaqiiska inuu ka soo agdhawaado. waxa uuna diiradda saaray labadii magaalo kale iyagana xeebta saarnaa dhaqaale ahaanna cir ka marayay ee Baraawe iyo Xamar. in qarnigii 17aad ee burburto saldanadii Islaamiga ahayd, taas oo muddo badan ka talinaysay geyga Soomaaliya, ayaa sidoo kale waxay ka dhignayd in halkaas ay ku wiiqantay awooddii iyo saamayntii qabiilkii Gaameedle ay ku lahaayeen geyga Soomaaliya, gaar ahaan dhanka koonfurta. waana sida badanaa dhaxdo sida uu Qur'aanka Kariimkaba tilmaamayo
gaar ahaan aayadda 34 ee suurat الnamal. bilowgii qarnigii 18aad magaalada Marko waxaa soo weerartay oo qabsatay saldanadii Geladi oo markaas fadhigeedu ahaa Afgooye, balse waxaa markii dambe la dagaalay oo marka ka saaray qabiilkii Biyamaal oo markaas aayeen awooddii koowaad ee Marko. isla qarniga 18aad bartankeeda waxaa magaalada Marko mar kale soo weeraray oo qabsaday nin taariikhyahanadu magaciisa ku sheegeen Caamir oo Abgaal ahaa. 34 sannadood oo uu Marko haystay, isna waxaa markii dambe la dagaalay oo marka ka saaray isla qabiilkii Biyamaal.